بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما bahdeena nagala socota CF bulshooyinka halkan nooga xiran kusoo dhawaada arinta tan qodobkan ka waramayno idin soo gudbinayno wallahi mar qalbigayga ka ilmeeyay marna ya makaag baasko ka yimid waxaan arkayaa afkaarta noocaana in bulshadaydu ku sii dhaxfaafayso waxa ka imaan karana oo aan garanayo ilaa bulshadu haday garanayso waxaan oo kale kuma dhaxfaafteen waa cod nin baa wuxuu la hadlayaa marka asagu sheeganayo in uu diintii hoggaanka u hayo sidii saxda ah dadka kale ugu yeeray caruur yar buu la hadlayaa codka ina maqashin doon wax kale idin maqashin maya ina idin kaga digan raba afkaartan qaabka xun u saameynayso bulshadana idin sheegayo diintii waa la kala qaybsaday ninkan wuxuu la hadlayaa caruur yar wuxuu weydiinayaa ummadda Soomaaliyeed jinsiga Soomaaliga buu leeyahay maxaa ka aaminsantahay maxay yihiin yani gaal iyo muslim muslimiin iyo gaal maxay caruurtu weydiinayaan ku imtixaama sanad dusiyad imtixaan weeye markaas caruurtu waxay leeyihiin gaalan ka aaminsanahay markaas u shacabinay wuxuu leeyahay alxamdulillah ma sha Allah Soomaaliya oo dhan koox gooniya iyo waxa qofkaas arinta qofkii sameeyay iyo maahan Soomaali jinsiga Soomaali waa jinsiga Soomaali maxaa ka aaminsan caruurtu ku imtixaamaya la hawla wala quwwata illa billah marka ina codkayda maqashiyo oo aan ka hadlo qayladaan iyo fariin u diro bulshadayda in isbadbaadisana ay tahay ayaan u duubaynaa muuqaalkan CF bulshada aad uga daawanaysaa falanqaynta iyo faahfaahinta intaan u imaan bal yaxiraan dhageysano codkaas asagoo cod buu ahay bimaana ma ahayn muuqaal yani la soo duubay cod buu waayo afkaarta noocaana inta badan kuma dhiiran kartid qof muuqaal ah laakiin marka wala isqarina cod baa laga dhigaa fiirso bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillah aqeedada aanu habeenaya maalin ba idin la hor taaganahay dadka iyaga waaweyn caruurteeda nala aaminsan adigu ma sana jirta ma sana jirta 9 sana jirta ayo Soomaalida maxaa ka aaminsantahay Soomaalida maxaa ka aaminsantahay Soomaalida gaala ka aaminsantahay ma sha Allah 9 sana waa jirta ayadu maxaa Soomaalida ka aaminsantahay gaala ka aaminsantahay meeqa sana jirta 9 sana jirta ma sha Allah Soomaalida gaala ka aaminsantahay ayadu meeqa sana jirta 12 sana jirta Soomaalida maxaa ka aaminsantahay Soomaalida inay gaala yihiin ka aaminsantahay ma sha Allah annaga iyo caruurta isku aqeedaan nahay isku diin baan nahay isku faham baan nahay alxamdulillah marwa wax qosol lagu qoslo yaqyaqsigaas marna waa yaab oo wax la sahlan kara maahan afkaartan garanaya horta diintiisa loo qaybsaday innal ladina farraqu diinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay laakiin nabi maxamed bari bukaya sallallahu alayhi wasallam waxaan ka waramayna afkaarta noocan sababaha u imaadaan sida looga takhalusi karo iyo khatarta keeni kara goormay afkaarta noocan timid Soomaaliya ku hadlo qof Soomaaliya ma casriga dadku ha arkeen qaarkood laakiin goormay ummadii hore waa xilliga rasuulka xataa noolaa soo baxay ninkii nabiga inta ka hor istaagay macnaha afkaarta waxa lagu yaqaanaa dhiiranaanta iyo xishood la'aanta macnaha ku dhiiran yihiin hadallada noocaas wuxuu ku dhiiranayaa ummadda Soomaaliyeed dhan baa gaala ah macnaha yaxyax malahan afkaarta noocaas waxa lagu yaqaanaa way yaxyax la'aanta iyo masriganayso waxaan malahan ama yani ku qaldantahay malaha kaligi muslim nabi maxamed ninkii ka hor yimid rasuulullaahi maxamed khayru khalqillah ilaahay uu xayoonay ayaa xoolo qaybiyay nin baa intuu soo boodo wuxuu rasuulka ilaahay محمد وعدالة بعد السمين قيب كان حولها تقيبين السدنا إلهي وما ذا عبسا معناها سوق ديرية في رواتب تانا وكله سوق ديرية ده والنبي محمد ما عبسي الله بريا من النبي محمد بعدالة بريا أبيها عدالة ريال كي عدالة مو بريا عدالة ديرنان مكاسة صحابة حين رسول الله كان معوها سكدافو كان دبر كيسو حق صبح دونا كوا قرآن كاي قانا إذا كسرات قروح بدن إذا كوناك مركب مقالك الله فيه لكن هباء منثورا سبحان الله
umadaydii oo walba daala dhacayso oo afkaartan wax yac oo qabyaalad laysay oo siyaasad laysay oo da awalba quusatay haday waxaan sii faafaan oo haddana awood sii yeeshaan jaanisyo fursado yeeshaan waa u dhamaatay rajo ma laha wallahi siyaasadaha lagu dagaalamayo iyo qabyaalada lagu dagaalamayo waxaana ka daran waxaan adigu hadal iyo waxaad u aragtaan hebel ba oo qoryaha waxaan u maleynaa takfiirka la yiraahdo masaajidka takfiirka adigu waa u haysataan maalintii kuwan awood helaan wallahi wax kasto na soo maray waxa leenahay iqarsay ahaayeen maxaan bay ahaayeen qumbuliyad waay saldhigoodana qardho waay waxaan qabyaalad baa lagu difaacaya afkaarta noocaan ah inay faafto ma aha kansarka ka daranta qabyaalada la isku leynayo iyo siyaasadda la isku leynayo iyo waxyaalaha kale ummadda isku xasuuqaystaan ka daran tan haday awood yeelato waa u dhamaato ummadda u dhamaato Puntland meel qardho la yiraahday meeshooda ugu weyn yihiin ayagu intooda badan ha ahaadeen isdhahan xaq baad ku taagantihiin oo ummadda khayr la jeceshinaha laakiin waa wax sumaysan waa khatar waa sum ma wax saxan in laga qanciyo in laga la doodo in hadii alla kuuranya afkaartaas ummadda aan lagu fasixin bay ahay laakiin ummad mid walba qumniisa qorta loo galiyay kullu xism bima ladayhim farihun iska dagaalo iyo dad ummada kale Soomaali de marka la xasuusto muslim iyo islaamnimo la xasuusanayo ayuu leeyahay carruurta lagu tababaraya jiilkan marka bari maxay keenayaan jiilka yarka hadda waxa laga dhadhiciyay ummadda inuu laayo xasuuqo weeyde illa gaal baa tay maxaa ka iimaanay ma taqaana macnaha khatarta ilaahay idin sheegay waxa ka iimaanaya macnaha dhiigkiisa xalaal waa ka iimaanaysa oo fasiranaya markuu dhinto laguma tukanayo baa ka iimaanaysa quburaha muslimiinta laguma aasayo laba mayrayo xaaskiisa hadduu xaasleeya waa ka furan ehelkiisa isma dhaxlaan macnaha wax ka khatarta marka islaamku leeyahay masaladan iska ilaaliya ka iimaanaysa islaamku ka waramaya asaga ummadii Soomaaliyeed leeyahay magaalada ka absan ma sha Allah markii la yiraahdo ha asagu Soomaali maahan ummadda ilmaha yar weydiinayo saqiirka ee fitrada ku nool ummadda Soomaali asagu muxuu yahay ma Chinese ba ma Ingiriis oo ka mid ah ku la xukumayo waa ka mid yahay waa mid maanta dadka hadii la weydiyo maxaa lagu gaalo maxaa lagu islaama maxaa lagu muslima hadda aniga weydiyo la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah wili wax wax kale diinta lagu soo galay jira maya la ilaha illa Allah صح خلط عقيدة خلط رقميات خلط عباده ومدة كبوحة لكن صحيتان بو بهاي صحيتان بو بهاي أصل كالضفيرين قف مسلم وإسلام ودين تو دجال الرسول قد دجال أفكار النوع أنا إني كدح شقيسو آد بنا وحما خطره هذو آد بوي قف مسلم إن قال لما لغو حكومة قال لما وحو أسوق وعيا قال لما قف مسلم إني راد قال باتا قال لما بل رسول كلا يحيي qofka muslimka oo aad gaaleysay tira gaal ka qatli inaad dishay lamid macna waxa ka iimaanay firso sibabul muslimi fusuq wa faasiqnimo qof muslim wala caayo iska day la gaaleysay maxaa keenaya afkaartan marka ummadayna ku faafto jahliga keenaya ummadda jahli ba ku sugay burburka keenaya afkaartan noocan wadamada burburay ku faafaan way ka hergalaan wadamada dawlad ka dhisan jirto la kontroolayo masaajid la kontroolayo meel walba ma ka faafaan asalkooda afkaartan hadda casrigan Masar bay ka imaadeen laakiin Masar dawlad baa ka jirta wadaad kana ka khudbaynaya kanaalkan wax ka akhrinaya masaajidkan dawlad baa hoos imaada wasaaradda baa hoos imaada awood leh oo qabyaalad aqoon oo qurun kala aqoon waxa anagu umadeena ku baabinay afkaarta xunta qurunka markaanu sahlano ummadda la hadhow la barooranaya leeyahay dadkii baa leeyahay marka afkaartan la difaacayo oo lagu difaacayo qabiil oo lagu difaacayo reeb lagu dhis kooda ugu weyn maanta afkaarta faafinaya ummadda ka aaminsan dham xataa qabiilkiisa ka aaminsan ay gaala yihiin qabiilku wuxuu ku difaacay qabiil qurunkaasi ummaddu maraysa laakiin waxay haday hadda fahmi weydo waxay ka dheeftay leedahay ummad islaam waa ka jiro dhaco waxa markaan maqlay waa ka qaman dhaco marka jahliga waa ku faafa afkaartan burburka iyo meelaha tafaraaruq ummadu meelaha lagu tafaraaruqay waa sida masaajidka uu eegi kan ku daba tukanin ummadiisana ay kala tahay meelahaas ay ku faafaan waa jahliga waxa kale afkaartan ku faafaan تعصبك آراء مذهب جوني الله تعصب أو الموضوع مذهب كان أما شيخان أصلا إنه حقه تاجيه وحكروا يعني أرنت أنا كفافتا إن أمضي هراء أمضي خير كوجه رئيس الصحابة رسولك أمضي تابعينتي ونار حفريسو مال قصو قيسان بيقادنا أمضي هراء لك جوي مرك هل كان سقى أفكارنا لك جوش وني دين ما توفض وحول بقرين دين أمضي بهنا قف إنها أدب فريسة والله
akhri kutubti taariikhda, akhri kutubta aathaarta saxaabada, akhri kutubti salafu saalix way buuxaan maanta waa buuxaan uma baahnid ba sheekh hebel iyo eedda hebel iyo mid ayna u dafriso uma baahnid ba wallah wadaa wax garanayso wax fahmis uma baahnid diintu basiid waa fududa wallah maanta si lagu helo ugu barto waa fududa afkaartaada lama dhaansan karo qalbigaada lama iibsan karo afkaarta noocan lagama dhaadhicin karo haddii jiilka hore aad ku xirantid laakiin meel dhexaa lagu fariisan markii meel dhex naloo fariistay kooxa la samaystay wadaad meel kan la moodo xaq waxaasaa imaaday marka waxaana ummadda in la baabi'iyo la dhibaateeyaa ka imaanaysa kuwan iyo afkaartan waa kuwii cusmaan dilay saxaabiga u dilay inuu khaa'in ahaa hadda waa saxaabigii la yidhahdo nool isagoo nool jannad gelaysa macnaha hadday afkaartu si xuntaa ku hay kuwan waa kuwii cali dilay cali bin abi taalib nebi maxamed ninkuu yidhi jannaad gashay isagoo nool gabadhiisa qabay ilmo adeer ahaayeen bay u dileen inuu gaal ahaa u fiirso oo khawaarij oo dadkii ummadda ka dhex baxay ummadda kalena gaalnimo ku tuuray iyo qallooc iyo baadi cali maxay u dileen saxaabadii kale maxay u dileen mucaawiya maxay dhagarta ugu sameeyeen camr ibn caas maxay saxaabadii nebi maxamed maxay sabab waxay aamineen dadka inay diinta ka qalloocata iyagu diinta ay saxayeen hadda waa nebi maxamed dadkii diinta nooga soo qaaday bay khalad u arkeen ayaga dib laga soo gaarsiin waxay soo arkeen inay saxan yihiin laana ra'yigooda baa cajibiyey cujbi baa ku dhacay cali bid maxaa saa gaalnimo yani gaal buu ahaa diinto kii dilay mid baa gabay u tiranayo dhahayo wallahi seefta cali ku dhacday seef qof alla ka cabsanaya ka timid bay ahayd wallahi hada waa saxaabi cali marka afkaar sun ah waay bal sunna ka daran wallah afkaar sunna waay ummadda hadda ay haysata وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ومدين هذا واي وداد وحليك قالوا وحبل لما تشوف فرقه كله وحبل لما تشوف هذا سيدي واي لا حول ولا قوه الا بالله maamulka dadka madaxda ka ah odayaasha culimada afkaarta afkaar khatar waay برينا برورتيدا arki doontaan hadaad sahlataan afkaartan ima in la cilaajiyo dadkan hadda waxaan dhahay caruurta masaakiinta iyo xitaa ninka ku qowlaya dad sidooda wuxun inaysan noqon baa laga yaabaa dad wanaagsan niyadu wanaagsan oo diintii u gargaarayo oo naxaya laakiin ay jir ka qalloocatay in la saxal raba marka in la saxo bal raba oo la lado oo leeyahay sax ma war waxaan khalad waay war aayada saa u faantay ma ahan saana saxdeeda xadiiskan saa u faantay ma ahan saana sax ila cilmigi baa looga takhalusay maxaan niri sababaha keenay jahli baa kamid ah cilmigi in la faafiyo wax la barto waa looga takhalusay in aan madhab iyo koox gooniyo loo tacasumin waa looga afkaartan looga baxaya in ummaddu wada jirto wada jirkooda soo ceshato waa looga baxaya meelaha tafaraaruqa iyo burburka dhacayna ka faa'iideystaan oo duruuftu ka jirto jaaniska ay ku helaan marka muuqaalka la soo daray la soo sheer gareeyay ad baan u cajab waliba 2 maalmood iyo 3 maalmood baa ku ceeshay dhageysanay la yaaban qofkan qof Soomaali qofkan Soomaali ma ahan miya caruurta marka kuwa wax lagu soo edbiyo asagoo ku faraxsan markuu yiraahdo maxaa ka amisanta gaala inay yihiin Soomaali alxamdulillah kaanama gool inuu dhashaday oo ku faraxsan ficilkii inuu sameeyo ummadda uu laayo ma jirto marka ninkan iyo dadka la afkaarta iyo dadka kale khalis bay bulshada ku hayaan nasiibay ku hayaan diintay ku hayaan waxa dhiban haysto dhan ayaa ka dar halisasan waxaasi hadhow imacaan say noqonayaan marka intay goortaay bilow tahay laga taxadaro oo ima Soomaan bari adinku ka xaabiyo Soomaaliya waa idin sheegan Allahumma hal ballaqtu allo ma gaarsi halista takfiirka ama gaalaysiinta qofka muslimka bighayr xaqi ay leedahay aad bay u daranta laakiin markii culimadii hore muslimiinta saxaabadii iyo taabiciinta looga soo kamaray kooxo gooniyo u tacasubnay saasana dhaxal siisay akhriya kutubti waa taala barta way taala afkaartan iyo kuwa kale la mid ah saxaya barta taariikhdi saxaabada barta saxaabadii iyo dhaqankoodii barta cilmiga waxaan waa ka gudbayna barta waa ima meel gooniyo in la idin fadhiyo meel gooniyo hadii alla ku run yahay aad tuubadooyinka ka soo tacasubkaas nasiibkeen tacasubku waa tacasub waxa weeye dameer unaan raacday qof bila yani hadii alla ku run yahay daliil haysan ina u tiraasada xaqa wixii ka soo khaldan waa masaa'ibka ummadeena haysta waay shubahaad baa ku dhacay dadka marka waxay diin aan ahayn bay diin moodeen waxaan daliil ahayn bay daliil moodeen
intii wax taqaanaa la rabaa marka inay saxdo, intii wax taqaanaa la rabaa inay nasteexayso, intii wax taqaanaa la rabaa inay xumaanta ka digto. xumaan badan baan fiirinaynaa, fan iyo heeso iyo fisqi kalaan fiirin, wallahi waxaana ka daran. laayo maxaa yeelay qofkan xumaantan samaynaya laga yaabaa khalad inuu arko, laakiin kan waxsaa uu dadka leeyahay waa gaalo, islaamnimadu sidaa u arkaa islaamnimada saxda inuu ka turjumo. heer dadka qaar waxay marayaan qofka ku salaamo aan salaam laga qaadin ilaa aad hubsanaysid caqiidadiisu waxay tahay. ilaahayna qur-aanka sidaas waa nooga digay. qof ku salaamay hadhihin weligaa lasta mu'minan, mu'min matiin, yani xataa isku kooxayna ahaanbe waaba ku salaamo waa muslim, calaamada islaamka ka muuqda. uurka waxaa ku jira qofka ilaahay kuuma dirsan, ilaahay daahirkaas inaa kula mucaamishad buu ku dirsaday. ummadda inaynu gaalaysiino oo waxaanu kale la imaanana shaqadeennu ma ahan. shaqadeennu waxa weeye inaynu saxnaa, shaqadeennu waxa weeye nafteena inaynu ka taxadirnaa. ilaahayba shaqadan kuuma dirin, shaqa aan taadi ahayn baad galaysaa. markuu leeyahay ummadda Soomaaliyeed hooyadii buu gaalaysiinay, markuu leeyahay ummadda aabihii buu gaalaysiinay, qabiilkiisa, jifadiisa, deegaankiisa, dadkiisa gaalaysiinay. ayagina waa arkayaan, laga yaabo inay qosliyaan waxba u arag baska arin qof afkaar. no afkaarta markay soo baxday dowladaha adduunka in badan oo kamid waxay goda gashay in masaajid la kontaroolo, waxa ka baxay waxa laga aqrinayo khudbadaha ayagu ay soo dajiyaan oo ay kontaroolaan. marka afkaartan sunta soo baxday sida Masar, Sacuudiga, Turkiga, meelaha dowladaha awoodda ay ka jiraan iyo nidaam iyo wasaaradaha shaqeynaya sida kuweena kala ma ahan magaca ama qabiilka iyo jifadaba ku dhisan 4.5 lagu keenay. maxay saxayaan? waxay saxayaan malaha, waxay qaban karaan malaha, waayo maba u idmaba inay wax qabtaan. mar haday qabiil ku fadhiyaan 4.5 ku fadhiyaan koox ay ku fadhiyaan, maba u idmaba inay wax qabtaan. marka ummadan ilaahay baa u maqan, ilaahay ummad badbaadiyay, dawlad badbaadiyay, nidaam badbaadiyay, maamul badbaadiyay, madax badbaadiyay soo saar. maanta waxa kaliya maqan waa halkaas meesha. markay hadii alla ku roon yahay banaanaatay waxaan iyo waxna haystay wax ka daranba Soomaaliya. marka arintaas sahlanina afkaarta noocaasna qofka ka dareentid ha noqon qof dhexgala ama la sii murmo hadaad cilmi aqoon iskaga aamusantaada raaco. halis way hadii kale waxaana waa sun. waxa la yiraahdaa afkaarta noocaana inay ku soo gasho waa sahlan tahay, laakiin inay ka baxda adag. sahlatun dukhul inay soo gasho ay kugu fududahay, casiratul khuruj inay ka baxdana waa adag afkaartan noocaana. marka halis way. ilaahay subhanahu wa ta'ala tawfiiqda hana waafajiyo, ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadeena ha badbaadiyo, fikrada dhunsanna ha ka badbaadiyo, walaalahan iyo ubadkaan ka naxaya afkaartan looga dhigay diin ilaahay ayagana ha hanuuniyo. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.